howlgalka dhana xarakada al-shabaab ayaa waxaa ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle oo garabsanaya kuwa militariga Soomaaliya qaybta 27aad warqadiisa saddexaad oo iskaashanaya ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada militariga iyo kuwa booliska dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka laga fuliyay deegaanada kale ah Doon Cabdalle, Moodah, Mareerey, Ceelanaane, Shanta, Barako, Kulanti, Garsweyne, Basro, Daniga, Baalo iyo Bolokunto kuwaas oo dhamaantood hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabelle gaashaanle sare Xasan Dhicisow Xasan oo hogaaminaya howlgalka ayaa waxa uu ka warbixiyay duulanka ay ku qaadeen deegaanada ay ku sugnaayeen xarakada al-shabaab waxaana uu sheegay in ay ujeedku uu ahaa sidii deegaanadaasi gobolka Shabeellaha Dhexe ay kaga sugan yihiin al-shabaab looga saari lahaa isla markaana loo sugi lahaa amniga guud ee wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaas lagu dilay madaxii qaraxyada u qaabilsanaa al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe balse ma uusan sheegin magaciisa. dhowr jeer hore ayaa al-shabaab waxa ay weerar u badnaa qaraxyo iyo dagaalo toos ah ay ka fuliyeen wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyaga oo halkaasina ku dilay askar ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabelle. sidoo kale waxa halkaasi ay ku dileen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle. mana aha markii ugu horeysay al-shabaab weerar ay ka fuliyaan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabelle. sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabelle ayaa wadar jiro hore howlgal ay ka sameeyay wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar balse ma aysan ku guuleysan in ay gabi ahaanba ay ka hortagaan weerarada xarakada al-shabaab ay ku soo qaadayaan wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad oo ka wada tirsan Shabeellaha Dhexe.